heesta originalku wuxuu ahaa cusub agan ahaayo laga goynin caarada carfigiisa leedahay udgoonkiisa leedahay ayay ahayd heestu cusub aganku waxa weeyaan meel naqa oo barwaaqo ah oo cusub ah oo weli caare laga goyn ayaa la yiraahdaa agan afka Soomaaliga isagu wuxuu yiri cusub degan aha degankuna waa meel la degay oo shilin iyo qaniin miirana inantii miyaan caayin ilaahay baan ku dhaariyay cusub degan ahaayo laga goyn caarada aykiisa leedahay inta markaan ku soo dhaafno heesta toddobaad aynu galnaa isla ileeyare heesta toddobaad waxa weeyaan heestii marwo heesta waxa iska lahaa Cabdi Iidan Faarax waxa qaada heesta Xasan Gacan heesta eriyadeeda waxa kamid ahaa halka uu qaldamo dul istaagayay hadda malaha dhabbay noqon minka faalka soo baxay milaygiya dabayshuna fidmo meerto weeyaan hadda malaha dhabbay noqon wuxuu ku bedelay ileeyare hadda malaha dhabbay noqon ninka faalka soo baxay horta faalki minka waa waxyaabaha faalka loo adeegsado marka isagu minkiibu nin u qaatay ninka faalka soo baxay wiilo nin baa faalkii kaga soo baxay ta kale wuxuu yiri fidma meerto weeyaan halkay ka ahaydna fidma meerto weeyaan wuu diiday halka hadda malaha bay noqon ninka faalka soo baxay wiligiyo dabayshuna fidma meerto weeyaan inta markan ku soo dhaafno isla heesta lafteeda intaan ka bixin qaladka labaad waxa weeyaan halkii ahayd marka xigana sheekada waxa ii marxaatiya muruq iyo nin maalayna kala muquunshay يعني مرق ينين ماله أينا كلا نحجلك نكن اللي يروح وفهم هالكاسي مقورن تيبو جرين ويحوري مرق ينين ماله إن كلا مقور شيء مقورن تروح ويا مركا وتيم بين مركا بيوقف لتيم بي أملا مقور سيويان مرق ينين ماله إن كلا مقور شيء يعني أذكر بيها كوجلي أنا إجلي مركا حيلا شيك هذا وحي مرقاتيا مرق ينين ماله إن كلا مقور waa hagaag